السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo maansadaas oo nooga hadlayo xogaa dhibaato biyo la'aan iyo baad la'aan iyo sidoo kale hooy la'aan ka jirta deegaan lagu magacaabo Qulaji oo ka tirsan gobolka Faafan. maansadu waxay leedahay qalbiga ay hulcanayay ilaa qararka oo faleeyda qarow baan la toosaa ilaa waaga qalacdiisa oo qumaati uma bogo hurdada saacatul ghafuurka waxa aan la qalan boogayay qadada ii diiday ama qiica baas ugu shiday qodaya beerkayga qiiradana igu sii dilay qasaya maankayga aan qiseeyo saakan rabaa inaad qiimaysaan wadadkaas qiyaas liida meel horta loo geliyay qayd ay xidhaan iyo malaha cunno ay quutaan ee la looma qodin oo biyuhu waa qariib darane guri qabowga laga galo malaha samada oo qooqan wax kastaba alla qoro haddana qiil u noqon maayo maamulkan xariga noo qabtay qiimo tiray beesha mas'uulnimadii ay shalay qabteen qurac dushii saaray مسؤولية شلة قبتين قرعة دوشي ساري قول آن بدنين بان رباه إنان قشبسيو dadkan ciilku kala qaybiyay Qulaji buu xidhaashay qaxooti weeyo haddana quud ku filan haysan qur'aan ay bartaan iyo iskool qaybta sare gaara midna qayb umayn helin ee dadkani qiimo badan siiya qoraal baan u dirayaa raggii magaca noo qaaday qabri baad gelaysaan walle qalimo waaweyn leh oo ma maaxigaysana haddaan xagga la qaybin qaadirkin ka yaabo naflahan qiimo badan siiya oo Qulaji way dulmantahay quud ha loo raadsho oo Qulaji way dulmantahay quud ha loo raadsho dadka Qulaji ku nool aad baan u salaamayaa iyo inta ka warhaysaba beebino dambaalkan hadda la madaxda insha Allah inay ka joogtaan rajaynaya ugu horeeya madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar iyo wasiirada aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.